calamada funaanadaha iyo boorarka ay ku xardhan yihiin ciyaartooyada ayaa si buuxda lagu soo bandhigayaa wadooyinka waaweyn ee dalka Morocco ka hor kulanka ay Morocco la ciyaari doonto xulka qaranka Faransiiska. Morocco ayaa heli doonto taageero aad u fog maadaama noqday xulkii ugu horeeyay ee Carbeed ama Afrikaana ee gaadha halkay joogaan maanta ee semifinalka. wadamada Carabta ayaa si gaar ah u taageersan Morocco maadaama koobkan yahay kii ugu horeeyay ee lagu qabto dhul Carbeed. Morocco ayaa dhaaftay heerkii laga filayay kadib markii ay garaacday xulalka aadka ugu sareeya markay noqoto qaaradda Yurub, kuwaas oo ay ka mid yihiin Belgiumka oo isku group ahaayeen iyo Spain iyo sidoo kale Portugal oo u soo baxay wareegga 16. calanka Morocco ayaa sidoo kale lagu iibinaya wadooyinka Afrika iyo Bariga Dhexe iyadoo taageerayaashu ay u kala ordayaan waxyaabaha xusuus reebka ee si gaar ah u farxad gelinaya xulka qaranka Morocco. waxaa jira baahi weyn oo loo qabo calamada Morocco sababtu waa wadankii ugu horeeyay ee Carbeed ama Afrikaan ay u soo baxay semifinalka, ayuu yiri mid ka mid ah taageerayaasha xulka qaranka Morocco oo calamada ku iibinaya wadooyinka dalka Masar gaar ahaan caasimadda Qaahira. waxaan rajaynayaa inay garaacaan Faransiiska. Morocco waa Carab iyo Afrikaan, Carabta iyo Muslimiinta oo dhani waxay ugu ducaynayaan Morocco inay badiso, ayuu yiri Maxamed Al-Saddad oo jooga dalka Liibiya. xulkii caawa soo baxa wuxuu si toos ah u ciyaari doonaa xulka qaranka Argentina oo xalay tolay 3-1 ku soo durduriyay xulka qaranka Croatia. nabadgelyo.